War cusub. Ninkii la dhahayay Sufyaan Taakeye oo isku soo sharaxay madaxweynaha dalka Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halka aad toos nala socotaan waa telefishinkeennii warbaahinteennii ummadda ay leedahay ee ST21 oo laga soo qaybiyey Soomaali Tijaabo 21. Maanta muuqaalkeena waxaan nila wadaagi doonaa insha Allah arrin baraha bulshada ka socota aanan idinka badankiina ogeyn. Waxaa laga yaabaa badankiina aan idinka ogeyn arrintaasi YouTube-ka ayaan horeed YouTube-ka ku arkin, laakiin aniga hadda aan ila hadlayo waxaa ku arkay Facebook-ka idinka badankiina aan ogeyn. Ninkii la dhihi jiray afar xaasle Sufyaan Taakeye oo isku soo sharaxay madaxweynime. Sufyaan Taakeye oo badankiina aqaantiin in uu waagii 12 January bishan sanadkan la soo dhaafay sanadkan hadda ku jirno bishii koowaad in uu qabsaday baraha bulshada ayaa haddana wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne. Ninkan sawirkan ka muuqda oo magaciisa la yiraahdo Sufyaan Taakeye ayaa wuxuu Facebook-giisa oo Sufyaan Taakeye ugu qoran yahay soo dhigay asiga iyo madaxweyne Farmaajo mid dooro. Wuxuu soo dhigay adiga iyo madaxweyne Farmaajo mid dooro. Farmaajo dastuurka gaalada iyo Sufyaan Taakeye dastuurka muslimiinta mid dooro. Micnaha hadalkaas wuxuu la jeedaa Farmaajo waa dastuurka gaalada, aniguna waxaan ahay dastuurka muslimiinta. Hadalkaas haddii si loo fiiriyo waxaa u arkaa hadal ammaan isaga is ammaanaya aniga ma ku arkin Farmaajo dastuurka gaala asiga oo noo xukumayo. Runta in isku sheeg ayaa roon. Ninkane mayaseen waxaa leenahay saaxiibkiin goobin madaxweyne waa noqon kartaa, cidii ku doorataan waa helaysaa, codkaagana shacabku u baahan yihiin. Wassalaamu calaykum.